Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayay horumarinta wax soo saarka Afrika. Markale Cabdifataax Durdur ayaa faahfaahinta warkaan eegaya. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda kaga qayb galay shirka wax soo saarka Afrika oo ah madal sanadle ah oo ay qaaradda Afrika kaga arinsato horumarinta wax soo saarka beeraha iyo sugnaanta cunnada. waxaana sanadkan shirka ka qayb galaya in ka badan 3,500 oo ruux oo isugu jira madax sarsare, maalgashato, deeq bixiyaal iyo hay'adaha ka shaqeeya beeraha, aqoon-yahano iyo cilmi baarayaal. waxaana inta uu shirku socdo qorshuu yahay in lagu lafaguro waxyaabaha hortabinta u leh wadan waliba, caqabadaha ku gadaaman wax soo saarka beeraha iyo sidii la isaga kaashan lahaa qaarad ahaan iyo mowduucyo kala duwan. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxay fursad u heleen in shir duceedyo ay la yeeshaan mas'uuliyiinta iyo wakiilada deeq-bixiyaasha iyo hay-adaha muhiimka ah ee ka shaqeeya beeraha, kuwa oo ka qayb galaya shirka ka furmay caasimadda dalka Rwanda ee Kigali. Cabdifataax Durdur, Juba TV, Muqdisho.